wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta dahsoon oo aynu ku soo qaadanayno Mareykanka oo sheegay inay Sacuudiga geeyeen diyaaradaha waaweyn ee qaadi kara gantaalaha culus iyo saameynta ay diyaaradahaasi ku yeelan karaan xiisad hor leh oo ka dhacda gobolkaasi. waxa kale oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona kor u kaca miisaaniyadda difaaca ee dawladda Qatar iyo heshiiska ay diyaaradaha kaga soo iibsanayso dalal ka mid ah qaaradda Yurub. kusoo dhawaada barnaamijka. xukuumadda Mareykanku waxa ay shaacisay kartida uu haatanka bacdi howlgallada dagaalada u yeelan doono saldhigga ciidamada cirka ee Amiir Suldaan ee boqortooyada Sacuudiga kadib markii ay saldhigga gaadheen diyaaradaha waaweyn ee dagaalada oo ay tayadoodu gaarsiisan tahay inay duqeyn karaan bagcad kasta oo dhulka ka mid ah. taliska dhexe ciidamada dalka Mareykanka ayaa goor dambe oo habeennimadii Jimcaha bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay in diyaaradaha dagaalada istiraatiijiga ee noocoodu yahay B-1B ay ku degeen oo caga dhigteen saldhigga ciidamada cirka Sacuudiga ee Amiir Suldaan iyagoo duulimaad aanay marna istaagin ka bilaabay saldhig ciidan oo ku yaala gobolka South Dakota ee dalka Mareykanka. waana xilli ay soo baxaysa cabsi laga qabo iska horimaad cusub oo bariga dhexe ka dhaca halka kaaliyaha gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Xuseen Amiir uu ku eedeeyay Mareykanka, Sacuudiga iyo Israa'iilba inay ka faa'iideysanayaan dalabaadka sharciga ee shacabka Ciraaq ee banaanbaxaya si ay dalka uga abuuraan xaalad keenaysa inay faragelin shisheeye lagu sameeyo. mana jirto wax war oo ay xukuumadda Iiraan ka bixisay eedeymaha uu la taliyaha baarlamaanka Iiraan u jeediyay saddexda wadan. Mareykanka ayaa dhawaan ku dhawaaqay inay ciidamo u direen dalka Sacuudiga iyadoo tirada ciidamada Mareykanka ee Sacuudiga la geeyay ay gaarayaan 3,000 oo askari tan iyo wixii ka dambeeyay markii weerarada loo geystay xarumihii shidaalka Sacuudiga bartamihii bishii Sebtembar ayna dhaaftay. diyaaradahan culus ee militariga Mareykanku la yimaadeen ciidda Sacuudiguna waa diyaaradaha loo adeegsado dagaalada istiraatiijiga kuwaasoo laga soo hormariyay gantaalaha difaaca ee noocyadoodu kala yihiin SAD iyo Patriot oo horeba noocoodu u yaalay gudaha Sacuudiga laakiin aanay u suuragelin inay ka hortagaan gantaalaha balaastikada ah iyo diyaaradaha daroonta ee kooxda Xuutiyiinta. sidoo kalena saanada difaaca Mareykanku aanay ku guuleysanin inay ka hortagaan raxantii gantaalaha Scotka ahayd ee aan ilaa hadda la isla meel dhigin meesha laga soo horgufay ee lagu duqeeyay xarumihii shidaalka Sacuudiga. gantaalahan iyo raadaaradan ay haatan Mareykanku saldhigga ciidamada cirka Sacuudiga geeyeen waxaa loo filayaa inay ilaalo u noqon doonaan diyaaradahan waaweyn oo ka ilaalin doonaan gantaalaha kruiska ee baalasha leh ee ay Iiraan haysato. gantaalaha oo sidoo kale ay Iiraan gaarsiisay wakiiladeeda dagaalka ee gobolkaasi iyadoo jamhuuriyadda Iiraan haysata ilaa 500,000 oo noocyada kala duwan ee gantaalaha dagaalka ayna tahay dalka afraad ee haysta gantaalaha ugu badan ee caalamka oo dhan waxaana ka gantaala badan oo kaliya wadamada Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha. waxaa maalinba taxigta kursi kacaysa miisaaniyadda difaaca ee dawladda Qatar oo heshiisyo iibka hubka ah oo kala duwan la gashay wadamada reer galbeedka badankooda. mid ka mid ah heshiisyadaasi ayaa Qatar waxay la gashay shirkadda Airbus oo ay leeyihiin wadamo reer Yurubiya waana heshiiska ay ku iibsanayso 20 diyaaradood oo helikobtera qiimahooduna isu geyn gaarayo $3 bilyan oo dollarka Mareykanka. qiimaha oo ka dhigaya kor u kaca miisaaniyadda dawladda Qatar ku bixisay dhanka difaaca 30 bilyan oo lacagta yuurooda tan iyo intii khilaafku soo kala dhexgalay dalalka la jaarka ah ee Carabeed. shirkadda Airbus Helicopters ayaa cadaysay heshiiska ay la galeen dawladda Qatar oo ka kooban kala iibsiga 28 diyaaradood oo helikobtera oo noocoodu yahay NH-90 iyo 16 diyaaradood oo kale oo isla helikobter taasa noocooduna yahay UH-125 oo lagu tababari doono duuliyayaasha iyadoo qiimaha heshiiskana lagu qiyaasay 3 bilyan oo dollarka Mareykanka. Mrs. Florence Pagny oo ah wasiirka difaaca ee dalka Faransiisku waxay ku tilmaantay go'aanka Qatar ku iibsanaysa diyaaradaha inuu yahay mid sii ballaarinaya iskaashiga militari iyo ka baayac mushtari ee midowga Yurub iyo dalka Qatar. halka sidoo kalena uu heshiisku guul u yahay wax soo saarka dalka Faransiiska iyadoo ay midowga Yurubna diyaaradaha qaybtooda ugu horeeya u soo gacan gelin doonaan Qatar sanadka 2022 oo ah sanad sumad gaar ah u leh dawladda Qatar oo ah sanadka ay dhulkeeda ku martigelin doonto koobka kubadda cagta ee adduunka.
iyadoo xulka kubadda cagta ee gadarna uu xilligan safka hore kaga jiro kubadda cagta ee caalamiga ah islamarkaana haysto koobka kubadda cagta ee xulalka qaaradda Aasiya oo uu sanadkan gudihiisa ku guuleystay. dhanka kalena dowladda Qatar waxay heshiis isfaham la gashay shirkadda Raytheon ee dalka Mareykanka taasoo uga shaqayn doonta Qatar ka hortagga weerarada elektaroonikada iyo falalka kooxaha burcad internetka ee cyberneska loo yaqaano. muddadii 3 sanadood ahayd ee u dambeysay dowladda Qatar waxay dhanka difaaca ku kharash garaysay 30 bilyan oo lacagta yuurooda ah sanadda oo ay soo iibsatayna waxaa ka mid ah diyaaradaha F-50 oo ay Mareykanka ka soo iibsatay iyo diyaaradaha kale ee Typhoon 5 oo ay kala soo wareegtay dalka Ingiriiska iyo diyaaradaha kale ee Faransiisku sameeyaan ee Nava.